واستابسدين واسوعدين لقطفر حريف قبو حلقه في هالبالوتو اري iyagu yaqaanin unbay u adeegsadeen balad askariga garabka u saaran yahay ninkan xabadaha tooska qoriga sugu jaahisna askariga ninka taagan goobaadka garbaha u saaran yahay wax ma qaata ku midhay laakiin dilka shaqo ma kulli afar Pakistan ay soo eeday bas haysta qoriga amaankiisa xiran saa inta ugu jeest wuxuu yiri hooyada miya askari qoriga xirka صدم بالو تارياني صدم بالو ninka xabadaya mutjusi qoraa wadata oo xabadaya sordey waa dhageysiga kiis dacwadeed lid ku ah askar ka tirsan ciidamada xoogga dalka iyo kuwa dib u xiraynta deegaanka kuwaas oo loo haysto dil dhaawac iyo dhac ay ka geysteen degmada Xardheere ee gobolka Mudug 10kii bishan maxkamadda ayaa u fadhiisatay dhageysiga dacwadeedka loo haysto eedeysanayaasha maxkamadda ayaa fursad siisay eedeysanayaasha si wax looga weydiiyo shaqaqada dhacday iyo kaalinkii ay ku lahaayeen waxa lagu eedeeyay inaad nin dukaankiisa ku jira dishay inaad 5 dukaan jabsatay inaad gaari xabad ku dhifatood burburiday inaad nin masaakiina aad xabad ku dhifatay inaad xabad ku bilowday dad meel iska socda oo macuusley ah taliye maalintii xabada bilaaween anoo xiray tasaabaxay oo ceelka maraayo xabada badan soo bilaawdeen naamiya imaade taliye ururtii iyo ayaan la hadda dhinta launa xariste oo dhaawac u maaday qodii xabada galay bartii ku dhaawacmay bartii la isa qaaday in saadaq meedhay la isa qaaday yaa ku dhaawacay sidee dhaawacday ma taqaan difaac loo warjiray afar jees xabada ka socdeen saadaq meedhay la cun la imaamada cantii xiray saadaq meedhay dacanta imaamada xiray isbitaalka uu sii socdo عبد الرحيم صادق مين دقيقة أديك ما كل سعد ما بس حريه حجر ساس يا كل سعد أديك يا كل سعد برتلي يا هاي مرتاس حريه ملرت ساستي أنا علت مرة حب يسوي بلادين هذا نامي ما نتلي يورتي يعني الله دعوة عوم هذا حبض غدية تجري برتلي كل عمي يعني الله حبض يدعي صادق مين الله عن الله عن تعلم مدي حريه أو إسبتارتي سوادي إسبتارت نص يسوع عبد الرحيم الله يهرم هذا أو برلابي على شعب توتو هذا دعوة هو يسدوي ولا قريان قرية سيدو ساقات إسبتارت لا استي عبد الرحيم أو وجوده هو اسكو داوي مو كده قرب الراوي يديبي هاي اسكو داوي محل ودا يا هاي ساده قاددي لا صاد ابو صلاه وهاي هاي سيام جعيس بس سجوي ما فهمتي واحد لنا مجيستاني لبتاس بساري ويستاني در iyo kabo iyo dukaamanki aad dhacda aw lagu eedahay انا محمد عن تلياني ما jiraan ma jiraan xas meeqa baalo tarid صدم بالو تارياني صدم بالو ninka xabadaya mutjusi qoraa wadata oo xabadaya sordey أنا واحد ما قاعد تكون بداية لكن دلك شغل مكلي أفر باكستان يوصل إلى بس هيستا أفر باكو سجارة لوجوسو إذا كليه هيستا دلك ما جيست جيسن أيه كوبسن ما جيسن يا دلي نك يا دلي نك قف يدري مشاي كذا أيه حاهسة تذكر كم حوا مري آكي فد سماوي آكي فود السمن عنديات أيه دكان كيك عادي أفرت عادو شيء كمان كتا قرصولا جاي لو يتم بالو تري تلياني لا تون بالو تري ها أكمل هاي مس وحوا بكام ما ها askar badan ay nima looga dhaawac هاي يا كل جوجي أديك مركا سيكي askariga looga dhaawac amisha looga dhaawac أما قد هذا أنت أكتر تجني سيكي أديك aniga iyo سيكي iyo askar badan ay adiga meesha joogda askartan inta ku ramo laakiin sika dhaawac ma ka hubo adiga xabada ku socotay ما غش هي سوق قادت wax aan soo qaaday iyo waxaan qof ka qaaday iyo waxaan ogaay midna ma jiraan دكامنك wax ma ka qaadat may سجار ما قادت ma qaadan dar ma qaadat ma qaadan كوب ما قادت may go ma qaadat wax aan ka qaatay oo meherad islaameed ay leedahay haba yaraatay ma jirto okay lix baalota ay sheegtay lix baalota laba waxaad ku riday laba subaxnimada hore riday afarna waa riday maxaa kala riday wax kale aan riday ma jiraan xafiiska xiralinta maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa soo bandhigtay cadeymo ay u cuskatay eedda loo haystay askarta waxaana maxkamadda la hor keenay marqaatiyaal goobjoog ah goobta dhibku ka dhacay 10kii bishii 8 2024 mudane gudoomiye maxaa dhacay mudane gudoomiye waxaa dhacay in ciidankii wadanka la soo tababaray loo tababaro inuu wadanka ilaaliyo juhdi badan la geliyay magacooda xitaa laga fikiro loo bixiyay ilaalo qaran ay magaalada sida al-shabaab ku weeraraan waxay ka geysteen dil waxay ka geysteen dhac waxay ka geysteen dhaawac waxay ka geysteen burburin hantiyadeed
sidaa darteed waxay ku xadgudbeen 434 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed sidoo kale waxa lagu xadgudbay 440 baaragraaf 2 lala akhriyo 71 oo wadajir ah si wadajir ah ay geysteen waa istaabsadeen waa iswacdeen lugta fur xariif qabo hal qof hal baalooto eray ay iyagu u yaqaaniin bay u adeegsadeen beledka mudan gudoomiye sidoo kale waxa loo xadgudbay aayadda 45aad ee suuratu maa'ida waxaana la dilay qof muslim ah bari ah xaq u lahaa in la ilaaliyo loo tababaray inay ilaaliyaan ayay gurigiisa ku dileen hantidiisa qaateen intaas waxa dheer buugidaynta ay ugu qori jiray qaansheegadka jahjaha si aan loo arag oo raad kasta u reebaan xabadu yaa bilaab xabada waxa bilaabay askari lagu magacaabo ninaas ahaan magacana adigu galka feelkiis la helayo leeyahay yaqaan askari ilaaha xabada bilaab oo ka tirsan urka 293 ee qaybta 22 yaqaan adiga ma kula socdo maya maye wuxuu ka soo galay anagoo soconna oo ay wax ka soo galeen asagii askari la yiraahdo Cabdiraxmaan waxay ka soo galeen wadada dhinaca midigta ah Cabdiraxmaan Carabi labadooda ordaya soo galay daqiiqado ka horna halkaan ka diray sargaalan ku wareejiyay waxaan ku yiri xarada taxriidina taga askarta halka aan ku ogaa labadooda kaligood soo laabtay luuqay ka soo galeen isla markii waxa baxday nimankii anaga nala socday oo farxan dheer la socdaan in darbiga ka soo jeestaan labadan ammaanka furtaan cod dheer ayaa waxaan ku yiri xabad lama ridi karo askari kasta ammaankiisa xirto yaqaana hal xabo ridi hal baalatur soo dhinaca ka soo jeeda yaa ridaya yaqaan inta kadib askartii farxan la socotay ayaa xabad furtay waxaan ka xusuustaa aniga markaas xabadahaas ka soo dhacay dhinacaas ayaa igu dhacay waxaan igu jahaysanaa nin madow oo arag ahaan aan garan karo magaciisana aan aqoonin ayaa aniga askariga nala socday ariyo xabada ninka rid uusan ugu aadanayn si toos xabadihiisa isoo aadeen ana miisana marka xabadahan qoriga ka soo dhacay inay igu dhaceen aniga askariga la yiraahdo ayaan le oo aniga ila socday isgaarsiinta ururka ahaan xabadahaas ku dhacay ninkaas xabadaha idinku ridayay ma taqaan wajigiisa naam ninkan ku jira askariga garabka u saaran yahay ninkan xabadaha tooska qoriga isugu jahaysna askariga ninka taagan baatiga garbaha u saaran yahay oo taagan miya afar taliyaan ahayn taliyaha ilaala qaran taliyaha macawisleyda wacaysle anigoo taliyaha oo macawisleyda kala raaxajiya iyo taliyaha macawisleyda cayr afartana soo dhaqaaqnay markaan soo dhaqaaqnay meeshaan qaadka lagu gadayaan waxaan ka jafnay nimankii macawisleyda hayo cayr waan naga dambeeyeen taliyaha macawisleyda macaysle iyo taliyaha ilaala qaran labadanadu waa ka horreeyay marka aan galnay marka aan sii soconno on goomeystaha iyo soonaha la sinanahay saddex nin ayaa jiirada ka soo baxday saddex qoriyo shaabaxiraan ay wateen ilaala qaranna waa ahay laba nin ammaanka u xiray nin ammaanka u furaa ammaanka ninka u xiraa maadaama aan ciidan wadno maslaxana u soconno waxaan ku iri qoriga ammaankiisa xiranay saa inta ugu jeestay wuxuu yiri hooyada miya iskale qoriga xirka saas igu qabtay qoriga markuu ugu qabtay waa taagan ciidamadii nala socday way taagan yihiin anu adiga yaan fiirinayo xabad baa dhacday dhash xabad u tiri anu kitaab la igu dhaashay xabadaas qofrta ma qaan arkana ma qofridi xabadu markay dhana xabadii isku bilowday xeerlaaliye Bashiir ayaa maxkamadda ka codsaday in eedeysanayaasha lagu rido xukun adag oo u dhigma dhibka ay geysteen si ay waana ugu noqoto ciidamada kale ee ku sugan degmooyinka laga xoreeyay qawaariijta mudana gudoomiye sidoo kale waxaan rabaa aan maxkamadda ka codsanayaa kow in eedeysanaha koowaad ilaa eedeysanaha 22aad ay maxkamaddu ku xukunto qodobada aan ku soo eedeynay oo ah dil toogasho oo intooda dhigta loo simo mudana gudoomiye xigmadda ku jirta waxay tahay haddii ay inta group isku xirma noqdaan ay qof dilaan ay maal dhacaan ee annama sidaas ku fakadaan mudana gudoomiye wax alla waxay doonaan ay samay doonaan
si arrintaas looga hortago saddan lidariicati in nimankan 22 kaas qof in horta maxkamaddu ay dhegtooda sinto oo disho ku xukunta dil toogasho oo ah marxuumkii maskiinka ahay ay ku dhex dileen dukaankiisa labada eedaysane ee macawisleyda ka tirsan ayagu waxay ku jawaabeen hadii loo jeediyo eedi 104 b oo ah ma gelin dambigaas hase yeeshee waxaan ku keenay markhaatiyaal oo kamid ah dhibanihi oo dhahaya ninkaas qorigiisa ay u soo taagnaa mudana gudoomiye ayagana si magaaladu uga nabad gasho oo aysan qof dambo si fudud aysan u dilin ayana waxaan maxkamadda ka codsanaynaa in ay ku xukunto dil toogasho ah oo ah labadii marxuum oo sida bilaashka ah ay u dileen meel nabadna ugu dileen meel colaadu ka jirin oo nabad ay ugu dileen sidoo kale mudana gudoomiye eedaysanayaasha 24aad ilaa ugu dambaysa maxkamaddu go'aan ka gaarto sidoo kale waxaan maxkamadda ka codsanayaa in 22 koowaad ay u raaciso xukunka 101 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed oo ah inay ka saarto ciidamada criminal record kan ay u geliso in dib dambe ciidamo u noqon aynan u shaqaynin gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 22aad gaashaanla dhexe Cabdullaahi Abuukar Xasan ayaa soo xiray fadhiga maxkamadda halkan ayuu ku gabagabeysan yahay dhageysiga kiiskan maxkamadda ayaana go'aan ka soo saari doonta wabillahi tawfiiq Maxamed Cabdullaahi Cumar warbaahinta qaranka